ciidamada dawladda Soomaaliya oo isugu jira nabad sugid booliis iyo military ayaa toos u weeraray guriga xildhibaan Xaadoole mar alle iyo markay dawladdu weerartay laba af ayay dawladdu ku hadashay mar waxay tiri dhalinyaro la ceyrsanayay ayaa guriga xildhibaan Xaadoole galay ciidankuna waxay daba taagnaayeen dhalinyaradaas ayadoo taa la og yahay ayaa haddana 2 saacadood kadib waxaa soo baxay war kale oo la yaab leh oo ay dawladdu ku eedeynayso xildhibaan Xaadoole maxay xildhibaan Xaadoole dawladdu ku eedeysay adaa yaabi doona muuqaalku markuu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa fiidowga in aad sii share garayso hadduu Allah idmo xildhibaanka ay hadda dawladdu eedeynayso oo eedda ay ku eedeynayso aad la yaabi doontaan wuxuu ka mid ahaa wafuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud u raacay dalka Talyaaniga oo qaab diblomaasiyadeed madaxweynaha ula socday isagoo diblomaasi ahaa maalmo ka hor madaxweynuhu uu u kaashaday arinta dalka Talyaaniga maxay tahay sababta hadda loo weeraray ayadana waa su'aal u baahan in ummadda Soomaaliyeed ay wax badan ka ogaato barnaamijka ayadna uga bogan doontaan oo aan ku faahfaahin doona hadduu Allah idmo waxaan xusuustaa oo dad badan markii aan halkan ka sheegay ay ila yaabi jireen maanta samar qaatimo doonta ay tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud cid kasto abaal u gasho oo ugu dambeyn isagu dhabarka ka toogto xildhibaan Xaadoole wuxuu ahaa dadkii u soo gurmaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanadkii 2021 waqtigii Marinaayo uu madaxweynuhu aadayay guriga Xaaji Muuse maanta Xaadoolihii xabadka u dhigayay xabadii xasan sheekh loo waday maanta eedda lagu eedeynayo waa isku kay qabalaadahay waxa kaloo cajiiba oo aan barnaamijka ku faahfaahin doonaa weerarka xildhibaan Xaadoole gurigiisa lagu qaaday wuxuu ku soo beegmay maalmo kadib markii uu Facebookiisa ku soo qoray arrimo ay dhibsadeen xubno ku dhadhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrinta Xaadoole uu ku qoray Facebookiisa oo ay dhibsadeen madaxweynaha saaxiibada ku dhadhow maxay tahay weerarkaana ma lagu salayn karaa qoraalkaasi uu Facebookiisa ku qoray ayadana waa dabageli doonaa barnaamijka ayadna ku daawan doontaan hadduu Allah idmo qodobadu waa arrimaha Xaadoole iyo weerarka lagu qaaday oo si gaar ah tooshka ugu iftiimi doona waxyaabo badan oo ka qarsoon bulshada Soomaaliyeed muuqaalku markuu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa fiidowga inaad sii share garayso hadduu Allah idmo soo dhawaada xildhibaan Xaadoole wuxuu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kalena waa mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda federaalka mar waa sargaal marna waa xildhibaan marna ummadda Soomaaliyeed waxay ku xasuustaan waqtigii 2021 xilligii madaxweyne Farmaajo looga hor yimid barnaamijkii midowga musharaxiinta ama badbaado qaran xusuus gaar ah dadka Soomaaliyeed 2021 Xaadoole aad ay u xasuustaan waliba wuxuu ka mid ahaa sidoo kale markii la doortay xasan sheekh maxamuud saraakiishii u bareeray in dagaalka al-shabaab loo bareeri karo oo ka bilaabay dagaalka shabeellada dhexe oo la diidanaa waqtiga in dagaalka al-shabaab uu si rasmi ah uga bilowdo Xaadoole wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee arrintaas dadka tusay in shabeellada dhexe laga saari karo al-shabaab dadku waxay ku xasuustaan abaal xasan sheekh maxamuud uu u galay walow taariikhda xasan iyo Xaadoole aan arrimo gaar ah uga hadli doona ama barnaamij gaar ah haddana dadku waxay xusuustaan waqtigii 2021 iyo sida uu Xaadoole u garab istaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waqtigaasi u sii qaxayay ilaa iyo Marinaayo oo halkaa waqtigii midowga musharaxiinta laga soo yaacayay aaga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waagaasi lagu difaacay xasan sheekh Xaadoole wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee shafka u dhiganaya xabadii xasan sheekh loo waday hase yeeshee abaalmarintiisu waxay noqotay sidan maanta ciidamo isugu jira nabad sugid booliis military ayaa bareer u weeraray gurigii xildhibaan Xaadoole dawladdu laba af ay ku hadashay marka koowaad weerarku markuu dhacay waxay yiraahdeen dhalinyaro ayaa la ceyrsanayay kadibna guriga xildhibaan Xaadoole galeen marka kadibna Xaadoole ciidankiisii ayaa isku dayay inay difaacaan kadibna dagaalka ayuu sidaa u dhacay mar inta ay dadku fahmeen oo la wada maqlay arrintii waa la bedelay ka warama dawladdu haday ku dhawaaqday kiis ay leedahay xildhibaan Xaadoole wuxuu ka ganacsan jiray maandooriye ama daraagis ama maandooriye hadda saad u taqaanaan ka warama kiiskaas haday dawladdu wado oo Xaadoole lagu eedeynayo oo la leeyahay gurigiisa qamrigii macmalka ahaa lagu sameeyay oo la leeyahay daraagis qaybahooda kala duwan ba halkaas lagu hayo nabad sugiddu waxay ka war heshay in guriga maandooriye lagu hayo
kadibna sidaas ayaa loogu duulay labaan aqaanaa mid saddexaad ma aqaano sharci iyo sharci dar haddii xaadoole sifo sharci ah loo weeraray oo nidaam dowladeed loo galay meel looga baxo iyo jiho looga jawaabay leedahay laakiin markii ay sheekadu noqoto qaabkii loo galay generaalkii jareer weyne ee ummadda Soomaaliyeed ay wada ogtahay sheego ee laga gardarnaa ee loo bareeray haddii xaadoole taa loo moodana ayadana waa goori laakiin dawladdu tani waxay uga baahan tahay in ummadda Soomaaliyeed iyo dadku xaadoole ka soo jeedo loo faahfaahiyo eedayntan ayaa ku soo beegmaysa xilli diblomaasiyiin xasan sheekh la socdo Talyaaniga aaday oo qayb ka ah ninka xildhibaan xaadoole ah nin marka diblomaasiyiintii xasan sheekh u raacay shirkii Talyaaniga in haddana la yiraahdo daraagiisa uu ka ganacsadaa ama maandooriye oo haddana xildhibaan dawladda ka tirsan uu yahay ama baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidee isku waafaqaysa ujeedada ugu dambayso laga leeyahay maxay tahay maxaa qarsoon ummadda Soomaaliyeed maxay fahmi laadahay waxaa soo socda marka sirta ku daboolan arrinta xildhibaan xaadoole aniga muhiim ma ah laakiin waan sheegayaa haddaad fahantaan alxamdulillah u sheergareeya dadka uu xaadoole ka dhashay waan ogahay waxa ma fahmi doonaane haddaynan fahmina rabbil caalamiin dee u sheergareeya aniga muhiimku waa inaad gaarsiisaan hadday qaataan iyo hadday diidaanba doorasho golo deegaan ayaa Muqdisho lagu wadaa inay ka dhacdo markii dastuurka wax laga bedelo doorashada deegaanka golo deegaan ee la rabo in Muqdisho laga qabto waa culays balaaran oo ay dadka gobolka gaar ahaan dadka uu xaadoole ka dhashay aynan ku baraarugsanayn waxaa la rabaa marka dadka ugu kulkulul ama dhaqsi bulshada kici kara sida xaadoole kale in la toogto ama loo sameeyo barnaamij magac dil ah si ay u qoostaan saraakiisha kale iyo mas'uuliyiinta kale ee asaga ku abtirsadaan laakiin anigu midan muhiim gaar ka malihi laakiin aad fahantaan un baa muhiim haddaad qaadataan iyo haddaad diidaanba xusuusta marka hadduu hadalkaygu been yahay oo sababta xaadoole loo weeraray aysan ahayn arrimaha doorashada golo deegaan ee gobolka Banaadir maxaa isku soo beegay maalintuu Facebookiisa ku qoray arrinta gobolka Banaadir iyo sida ay wax u wadaan ragga ku dhow Xasan Sheekh Maxamuud oo ula jeedo beesha habargidin maxaa loo weeraray xaadoole markaa kadib isweydii markuu yiri Muqdisho golo deegaan hadday noqoto markuu shafka garaacday ayaa kadib la weeraray gurigiisa cilmigan lagu dhigin fadlan aqliga kaasho haddaadan aqoon u lahayn waxa fahamkeeda lahaw maalintuu Facebookiisa ku soo qoray inta kadib weerar toos ah lagu qaaday waan ogahay xaadoole dadka uu ka dhashay dad sii jeed weyn oo waxba fahmin oo markay xeere iyo fandhaal kala dhacaan arrintu ay faraha ka baxday soo xaytaan anigu waan ogahay balse anigu ogeysiiska leeyahay ujeedada xaadoole loo shambadaynayo oo hadda loo weerarayo loo tijaabinayo waa dibiga bire weyshu ha ku qoos qaadatee si aynan mar kale u dhicin duqa Muqdisho iyo gudoomiye gobol oo ka soo jeeda reerkan la yiraahdo Abgaan inta la diiday waa intaas waxa loo socdo waa doorashada golaha deegaanka oo la rabo in shambad la saaro ragga xaadoole oo ugu horeeyo nasiib daro wuxuu ka dhashay Abgaal 98% aanan abdayba ahayn waxba fahmay laakiin Abgaalo ama fahma ama iska daaya xaadoole weerarkiisu waa tijaabo idinku bilaabatay كل وان هو موقال كله كحجة أيام إذا كحسوس الدوناية إن مالنا أن إذا تصدر مت كلا أبجار اللي يقول جيه أنا أقول لو كسي أيام تصال أسوق عملية لو كسي دوي فربضان تحي لكن هل اللي بحبا أنتو صور أحجر مت بوك قفصلا كوا كلا أنت يجرب سين لهايين ويكدو دان أبو يكيعان هذا ما أنت إذا كقبتي وحنا الدور يوا مقعدل وحنا الدور يوا بهدل وأنا مد لجسو الشقيي صورة قلنا ما حنا بسجد إيه بوليس إيه ملتري إسلا الصعدة إنه يجري حل إبان أبريران وتجابوا حداد فهمتين أبقالوا الحمد لله قاطة تلذيذة حداد ديدين وهذا فهمنا دين رب العالمين ماشي قدرنا أركينا ويكوسو كنا حالها سنة وحكوسو قد بدونا برامج هذا الصعدة حسن شيخ محمود أبال مالي هران يدكو الشيء
ما حسوستان حادولة maalintii uu jiirada degmada Kaaraan intuu istaagay iska degmada Kaaraan intuu istaagay isagoo wata daba jeex 2021 ma xasuustaan oo lahaa cid u gudbi karta ma jirto waxaan ka mid ahaa raggii halkan ka sheegay waliba isla page-kan ka sheegay xaadoolo inuu dib uga shalay doono maantana isagoo xildhibaana ayaa ciidamo dawladda ka tirsan u bareereen gurigiisa eedaynta la eedaynayana waa mid ay faray ku godan tahay oo ka soo sheekeeyeen cid walba oo isla hadalkan waxba kama jiraan ama aaminsan dib u raac taariikhda wixii dhacay 2021 bishii afraad ee abriil dib u raadi xaadoolo dadaalkii uu galay xasan sheekhna arag abaalmarinta in gurigiisa la weerarana maanta markhaati ka noqo runta ugu imow Cabdullaahi Balwaan wixii ku soo kordha barnaamijyada kale ayaa idinku soo gudbin doona nabadgelyo